ay kala dhaxayso baarlamaanka Soomaaliya isagoo xusay in halkii sano ee ay jirtay xukuumaddu ay dhowr ajenda u gudbisay golaha shacabka. mudane Saacid ayaa sheegay inaysan kala kulmin baarlamaanka muddadii uu xafiiska joogay wax caqabad ah isagoo inta raaciyay in 25 hindise iyo 5 heshiis ay u gudbiyeen baarlamaanka. waxaan halkan ka aqirayaa in baarlamaanka iyo xukuumaddu ay ka dhaxayso wada shaqeyn wanaagsan, waxaana halkii sano aan ka soo gudubnay aan u gudbinay 25 hindise sharciyeed iyo 5 heshiis, dhammaantoodna waxay u meelmariyeen si ay ku jirto kalsooni buuxda iyo shaqo wanaag, ayuu ra-iisul wasaaruhu yidhi. sidoo kale ra-iisul wasaaruhu waxau sheegay in xukuumaddu ay ku kalsoon tahay wada shaqeynta kala dhexaysa baarlamaanka, isagoo sheegay inay u gudbin doonaan sanadka soo socda mooshinno iyo heshiisyo kale oo intaa ka badan. baarlamaanku wuxuu muujiyey shaqo wanaagsan oo hufan. waxaan inagu diyaar u nahay inaan ula shaqeyno si wanaagsan, tanina waxay caddeyn buuxda u tahay, ayuu yidhi in xukuumaddu ay diyaar u tahay in lala xisaabtamo. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hadalkaa ka sheegay kulan maalintii ciidda ahayd ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya, isagoo intaa ku daray inuu ku faraxsan yahay howlaha dowladda Soomaaliya u qabsoomay intii ay jirtay, uuna shaqo intaa ka wanaagsan u rajeynayo sanadaha soo socda. dhanka kale ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa lagu wadaa in 26 bishan Oktoobar uu hortago baarlamaanka Soomaaliya si uu khudbad ugu sharaxo waxqabadka xukuumaddiisa ee sanadkii lasoo dhaafay. dhanka kalena xogayaha baarlamaanka golaha shacabka ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin in ra-iisul wasaaraha laga dalbaday inuu kalsooni weydiisto golaha baarlamaanka. xogayaha golaha shacabka Soomaaliya ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin warar sheegaya inay ku amreen in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya inuu hor yimaado baarlamaanka si uu kalsooni u weydiisto, warkaas oo ay warbaahintu qaarkeed baahisay. cabdikariin xaaji cabdi buux oo ah xogayaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in qoraal ku soo baxay warbaahinta qaarkeed oo sheegaya in ra-iisul wasaare Saacid uu weydiisto kalsoonida aysan ahayn mid wax jira. warbaahinta Soomaalida qaarkeed waxaa lagu baahiyey warar aanan wax ka jirin oo been abuur ah. baarlamaankuna xaq ayuu u leeyahay, ayuu yidhi, in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda la xisaabtamo, balse qoraalka la baahiyey ee ah in xukuumadda loo yeero waa mid been abuura. isagoo sii hadlaya ayuu xogayuhu sheegeen in qodobada lagu doonayo ra-iisul wasaaraha inuu ka bixiyo amaba uu hor yimaado baarlamaanka oo u ballansan yahay ay tahay in miisaaniyaddii hore waxay ahayd inuu soo gudbiyo iyo sidii ay u hirgashay iyo caqabadihii ka hor yimidba. sidoo kale waxa uu yidhi baarlamaanka waa in la horkeeno miisaaniyadda sanadka soo socda ee 2014, iyadoo kadib wasiirka maaliyadda uu iman doono oo arrinta miisaaniyadda si ambaqaadi doono. taas ayaana ah xaqiiqda jirta oo ma jiro wax mooshin ah oo laga keenay, ayuu yidhi ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk.